bishii December 13 December 1499 Vasco da Gama ninkii dalmareenka ahaa oo Portugalka ahaa wuxuu ka soo bixitay Afrikada bari Tanganyika Zanzibar iyo Kenya magaalooyinka xeebaha ku haysta yay Cumaaniintii ka qabsadeen Portugalku muddo dheer haysteen halkaas xeebaha Soomaaliyana aynu qabsanaa la yiri ninkaas la soo diray bar soo arag baa la yiri magaalada ma ugu weyn ee Muqdisho la yiraahdo markab wuxuu watay dagaal meeshuu ku qoran yahay laakiin brief baan siinaya markab dagaal buu watay aan soo galay buu yiri iyo ogolaada inaan soo galo wala markab dagaal baad walataa buu yiri af Sawaaxili buu ku hadlahay markab dagaal baad walataa see kuugu ogolaana ciidayada haddaad soo gashaan la qabsatay military markab dagaal wata doqon baa tahay xeebtay waxay la seexdeen fallaaro iyo dhagax iyo warmo awowayaasheen iyo ayeeyaasheen soo deg baa la yiraan ku aragnay 12 saacadood markuu ka qustay madaafiic ku furay wixii dhintay lama sheegin laakiin wixii wanaagaha iyo dhibaatadii asaga ku dhacday iyay soo qoreen magaalo qurux badan oo 4 munaaradood leh guryo dabaqayaal leh 3 dabaq 4 dabaq 2 dabaq guryo ah magaalo qurux badan yaa la ii diiday yiri uu ku soo qoray Portugalkii way fariisteen dawladii boqortooyadu waxa la yiri aynu xog ku qabanno Trista da Cunha kabitaan Trista da Cunha oo 16 markab wata yaa la soo diray xooga lagu qabto markuu marahay la simaadka baraawe markuu aragay yudaaraha dheer arka waatan buu yiri meeshii Vasco da Gama laga soo ceeshay ku soo leexdo sidii oo kale maamulkii ajuuraan baa jiray boqortooyadii ajuuraan oo xoog ku lahayd shabeellada hoose meel walba wala soo diray fardaa meel walba loo diray xeebta la seexdo 16 markab meeshaad ku arki doontaan magaaladii waa la qabsaday laakiin dad badan baa laga lahay 41 waa la dilay 60 waa la dhaawacay Portugiisa dadkii bay la carareen markaas Mombasa oo ahayd xaruntooda weyn oo dhaqaatiirtu u jeetay wala carareen mudana adigu 24 saacadood muddo ka badan bayna haysteen magaalada dadka qaar ba markaas ay yiraahdaan dadka degani waa Portugiis waa qabsashadaas 24 saac Portugiis maxaa ka dhigay dad Soomaaliya weey oo dadka ugu Soomaalisan maantay waayo 1400 oo sano bay dhaxaltooyo ku jiraan alla igu og yahay kulligeen oo dhan dadka gibilcad Soomaali gibilcad la yiraahdo wayna ka Soomaalisan yihiin wanta ma dhorteedu ku daadanaysay daar intaas oo dhaxalana ku jira iska dhaxlayeen marka ajaduna saas weeye